السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله سبحانه وتعالى ما تسكله أمان تجونا بريستول وحال مرتنا شيخ أحمد جوهر يحاس كي سهيبه والله ما أنت يحضرنا كفاية سنة ماشى مركاني وحان به الله كلية وحان الله الشيطان وحكود ذالا إنه جويه بقولي شيخ أحمد جوهر يحاس كي سنة وحكود ذالا إنه جويهس إن النساء marka waxaan dhihi lahaa maaragtay wax badan ka faa'iideysanay aan soo koobi karin marka in lagu dadaalo koorsooyinka ee bixinayaan intaas ayaan dhihi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaad doonto waad ii sheegi kartaa haddanaad sheegto soo joogsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطك كروي أي رقم. يا عطك جالس كسر عايقات. عبد الرحمن وحكمي هي ذاتك كسوق قيب قلمانتا كلانكي أما كورسدي أن كل بحين من هذا بريستول وحبضان با عبد الرحمن ماركتي وكدر مع شردي ماشي كبحي marka waxaan ka codsanay inuu la wadaago isagiyo sida walaalaha kala dhanba bal aragtidiisa waxa uu dareemay oo ka dhex arkay si aad idinkuna uga faa'iideysataan baritoon عبد الرحمن maanta waxaan ka dareemay ama ka halkan kala kulmay waxyaabo badan sida qoyska waxyaabo badan oo markii hore ogay qoyska lahaa waxyaabo badan oo aan fahamsanayn ama aanan wana shaaqad iyo dumarka problemka iyo waxa laga hadlo waxyaabo badan oo aan soo maray laakiin xilligaas xalkeedu ma ahayn laakiin hadii aan maartay waxyaabaha ninka aan arkay haddaan helaa in waxa laga yaabo in xalkeeda marka aan يعني هذا الفيديو خلاص كذا هذا الكاد دوقات محلنا ذي إن صح كتوابين مع استفاد فرصة سيو لكن أنا كنت دقيقين أما مرتي حبر وقف كان ذلك اللي عملت تجني أنا كنت داري لها حيوان عندنا في الجلسة أيوة صح كويس كل ما صارت دينتنا very important مهم مركز دينتنا آدي اللي كنت دارو وحرق لها لا تبصدق الحياة بدون أول بكترسة وتكده حتى تعاون كويس آدي ما شاء الله وإلى أين هنا بارك الله حياك الله جزاك الله صح أنا قبلها أنا كنت ما وراك يا كم marti inoobaha sheekh jaw cashan fiican oo ku saabsan fahmiyad iyo qoys wanaagsan sidii loo dhisi lahaa ayuu halkan saliidinaysa qaadan iyo marayo sheekh inuu soo jeeday kaga baxay والله عشان في حركة قادمة ما شاء الله كشطار طبعا سوق يمكن سيد واحد على حركة قادمة كوميونيكيشن وكذا بس أنا اسمه الله أنا كي حاسس كيسم قادمة أيضا أنا مشروع لكن حالة بدل مثلا سوق يمكن لك هذا ما شاء الله هذا مثلا أول ما هذا السيد مثلا كوميونيكيشن إنك سواء عن جعل هاي أنا مثلا الدروس أنا حاول دون سكور الدروس ما شاء الله marka waxa malaha asaliin la yiraahdo wiil bulshada marka ashqada halkan ku qaatay marka guusto mustaqbalka ilaahay ku soo dhigeeyay ma ku tabaqi kartaa heerka cusub ee leelayso oo marka faa'iido marka barakaca wax kala sida waxayska dhis doonto aad ugu dhaqmo إن شاء الله تستطيع الجعل هاي ما دام الجعل كورسون من كخاطر وتاس قصر ولا متقن كل أنا متقن دروسنا قاعدة أقول غير متقن مستقبل كمان إن شاء الله والله ما شاء الله السلام عليكم magacaaga qoraal magaca Ahmed Aawa waxa martin magaalada Brussels inoo wada sheekh jawaab iyo gurudda qaaliga iyo Umar waxay noo soo bandhigeen barnaamijkii badan oo ku saabsan sidii qoys wanaagsan loo dhisi lahaa oo xukuumadda loogu taagi lahaa oo asxaab badan faa'iido leh ayaa Aawa laga
maxaa kaaga baxay aad rasmi kartaa runtii aniga waxaan oran karaa iga baxay waxaan arki jiray un family problem family burburay iyo dhibaatooyin shaakil laga sheekeynayo waa caawi iga duwaneyd runtii waxaa laga dhigaa faamiliga wanaag weeye haddii dhibaatooyin yimaadaan qaabka loo xaliyo insa loo maanajgareeyo waxaasoo dhan baa lagu sheegay sidoo kale kala duwanaanshaha iyo fikirka iyo hadalka iyo qaabka aadka u ballaadan iyo masaxaan si kala duwan inta dadka ay aqoon badan u lahayn oo muhiima iyadana oo lagu baraarujiyey waxyaa badan oo soo arkay oo problems oo la yaabnaayo ay jiraan ay dareensiiyeen way jiraan malaha lagu fadhiya in dhalinyarada wali guursan casharada aad qaatay caawa marka mustaqbalka guursato ma kula tahay inaad ku dabaqi doonto reerka cusub runtii waxaan rajaynayaa inaan full course casharro badan ka qaato sheekha sidoo kale waxaan odhan lahaa bulshada Bristol joogtay iyo family kasta Soomaaliyeed waxa wanaagsan bay sheekh Jawhar iyo ilaa kharasiyihiibu ay soo bandhigeen oo barnaamij fiican waan dhiirigelinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah inaan anna mustaqbalka haddii ilaahay markaan xiriiriyo insha allah wixii awooddeeda iyo karaankeyga ah intay ii sheegeen iyo ka badan waan isku dayi doonaa insha allah inaas waa tahay waa aad u salaam